هاي أصحابتي maanta sheekada filimkan waxay ku bilaabanaysaa ninkan lagu magacaabo John Chu waana CEO-ga warshadaha Ju Group waxaan arkaynaa asigoo baar iska fadhiya habeen kastana baarkan ayuu iska imaadaa kaligii waxaan caawa baar kula sugan gabadhan lagu magacaabo Suji gabadhan qorshaha wadata waa ninkan ay kulmaan kadibna ay isbartaan si wacan ayuu u taqaanaa waxayna aaminsan tahay nolosheeda caajiska inay ugu bixi karto kaliya ninkan inay isfahmaan markaas ay nin jilaa lacag soo siisay iyadoo asigoo iska soo dhigaya inuu cabsan yahay kadibna iyada fawda ku bilaabay qorshuhuna waa John Chu inuu ka celiyo kadibna sida isku bartaan halka John Chu iska dhigay wax cabitaan cabay laakiin gabadhan isha uu ku hayo laftiisa waqti xaadirkaas ninkii lacag soo siisay amaana wuxuu sheekadii u sheegtay inuu bilaabaya John Chu ayaan isla markii bilaabay inuu ka celiyo waana sidii qorsheenaysay dhacdadaas kadib wax yar ay sheekaysanay ugu dambeynna waxay ku codsanaysaa inuu hotelkeeda geeyo isla markaasna uu soo wadaya wuxuu keenayaa qolkii hotelka ka deganay markaas iyadoo qorsheeda sii wadatay iska korridaysa ayadoo doonaysa markaa ninkan qalbigiisa degto habeenkaas iyadoo waxay iska seexanaysaa sariirta halka asigana uu seexanayo barkada qubayska subaxdii xigta markay ka soo kacaan Suji waxay iska dhigaysaa inay xasuusan xalbiinkii wixii dhacay kadibna lacag ay u soo taagaysaa waxay ku leedahay hotelka ku dhiib lacagtani laakiin John Chu wuu ku diidayaa waxaan uu sheegay wuxuu doonayaa inay iyada tahay waxaan halkan ka ogaanaa sidoo kale asigana hore u yaqiin gabadhaani uu iskaadkaad ku hayay kadibna iska soo baxaysaa markaas ayuu wuxuu ku arkayaa karkeeda oo meesha yaalo asigoo u maleeyo meesha ugu dhacay laakiin iyada si ku talagalay meesha ugu tagtay qorshaheeduna uu yahay inuu soo raadiyo iyada markaas Suji gurigeeda ay soo gaaraysaa waxaana la kulmaysaa aabaheeda Chen Fang iyo walaasheed Suliyan oo eedadeed aabaheed qaba dhalashay ayuu Mr. Gu la cuntaynaya isla markaas ay Suliyan waxay weydiinaysaa halkii habeenkii ay jirtay Suji ayadoo raacsiinaysa inay tahay isla wareegto Suji oo caraysan ayaa ku dhahaysa waxba kaama gelin arrinkaasi markaasna waxay soo bandhigaysaa sawir ay ka qaaday Suliyan iyo Mr. Gu oo wada socdaan xiriir hoosana uu ka dhaxeeyay halka Mr. Gu intuu soo bodo ku dhahayo wax jira maahan waxani oo gabadhan iyada ayagu ka keentay wax xiriir aan leeyahay ma jirto isla markaas ay aabaheed Chen Fang isku dayay inuu arrinka dajiyo Mr. Gu wuxuu iska dhigay nin caraysa Suji aabaheed ninkan ayuu la doonayaa maadaama nin lacag la u yahay gabadhiisa inuu ku daro waxaan halkan sidoo kale ka ogaanaynaa Suji hooyadeed markay geeriyootay inuu aabaheed guursaday naag lacag leh oo kambeyn weyn u shaqeeyo Suji caraysan ayaa aabaheed ku dhahaysay marnaba inay sameeyeen wuxuu doonayo dhan kale waxa arkaynaa John Chu oo dhageysanaya sheekada gurigan ka dhacayso maadaama difaasada wax lagu dhageysto oo borsada ugu riday gabadhaani wuxuuna aad u xumaanayaa sidii familkeeda u dhaqmayaan gabadhaani iyo dhibaatada dhanka familka ay wajahayso marka waxa arkaynaa John Chu yaraantiisa oo mid tuuga soo afduubanayo kadibna oo aad u garaacayo ninkii tuuga markuu ka tagana gabadha jar ayaa u maanayso kadibna meesha ay ka furaysaa niyada inuu dhisaysaa kadibna meesha ka badbaadinaysa waxaan halkan ka ogaanaynaa gabadhaas inay gabar kale ahayn ay Suji ay tahay ilaa yaraantiisna uu jeclaa Suji dhacdaas oo iska hilmaamtay halka John Chu qalbigiisa uu ku hayo lahaatan uu doonayo wax walba noqoto inuu garabkeeda ahaado Suji markaa waxay qaad ka taagantaa aabaheed sidoo lacag darteed wax u sameeynayo waxayna go'aansanaysaa inay familka sidooda xiriirka u jarto wayna isaga soo tagaysaa ayadoo markaa wadada iska socota ayaa John Chu gadaalka wacayo asagoo ciwaankeeda ka soo ogaaday ID kaarkeeda isla markaasna waxay bilaabaysaa inay iska dhigto qof aan waxba ogeyn kadibna waxay ku leedahay kaarkayga ii soo celi wuxuuna u sheegay kaarka inuu ka soo tagay kadibna gaariga ay soo raacayo ku leeyahay aniga ku wadaayo markaa waxay la yaabatahay ninkan lacagta leh oo gaarigan noocan wato markaas ayuu u sheegay kaarka inuu gurigiisa yaalo kadibna halkaas ay aadaan maadaama meel kale ay qabatay inaan garanayn waqti xaadirkan way iska aadaysaa isla markaasna gurigiisa saxda geeyma ay guri kale oo nasiin loogu talagalay ayuu geynayaa waxaan isku dayaa markaa sheekada inuu guddiyo laakiin waxay ku dhageysaa kaarkayga si ugu dambeyn uu ku qasbanaanaya kaarkeeda ayuu keenayaa isla markaas ay bilaabaysaa inay guriga isaga soo tagto ugu dambeyn uu wacaya wuxuuna u sheegayaa inuu waqti xaadirkan doonayo familkeeda dhibaatada ay ku hayaan inuu ka fogeeyo si wacan ugu taxadiro laakiin sheekada waa iyada waxay la yaabantaa sidoo ku ogaaday iyada familkeeda si ay u dhibaateeyaan laakiin ma weydiinayso maadaama laba fursad ay meesha ugu soo baxday fursad ay familkeeda ugu soo fakato iyo fursad kale ay CEO-gan saaxiib ay ku noqdaan taasoo ay walba iyada ay gaadgaadaysay kadibna way ka ololaanaysaa guriga inay joogto asigana aad ay ugu farxayaan maadaama uu walba jeclaa inuu gabadhan u dhawaado si walba aad habeenkii korontada ee guriga ka tagayso cillad ku timid darteed maadaama asiga waa nin wax walba xariif ku isku dhigay wuxuu isku dayaa inuu ogaado cilada jirto laakiin Suji iska fahansantaa maadaama ninkan CEO yahay wax walba in loo qabto sida daradeed ay raadinayso kadibna ogaanaysa cilada meesha ka jirto markaas ay u diraysaa qalabka loo baahnaa inuu soo gado kadibna dukaanka ay soo aadayaa isagoo qalabkii soo gadaayo wuxuuna sidoo kale hore u soo iibsanayaa buugga korontada ka sheekeynayo si uu korontada wax ugu barto ugu dambeynna korontada way habeenayaan markaas ay bilaabaysaa inay ku qayliso iyadoo ku dhahayso nin wax walba xariif ku ah iska dhigaysa maadaama ay ku qayliso isla markaas uu isku dhaxayacaya wuxuuna bilaabayaa inuu yaraantiisa xasuus galo shoog oo dhacdadii ka qaaday isla markaasna asagoo u jawaabin ayuu ka cararaya idan oo yaaban tahay asigoo aadaya farmasiin oo daawo ka soo qaato subaxdii xigta markay ka soo kacdo waxay arkaysaa asigoo meesha joogo isla markaas iyadoo isku day su'aalo kale inay weydiiso ayuu isla markii intuu u imaado wuxuu bilaabayaa inuu shumiyo tan oo su'aalihii niyad ku haysa dhammaan hilmaansiinayso markay quracayna iyadoo ninkan inay waxba ka aqaan iska dhigaysa ayuu waxay ku leedahay xakaa shaqaysaa markaas ayuu u sheegaya inuu shaqo doon yahay wax yar kadibna waxa uu arkaynaa asigoo wacay ninka caawihiisa ahaa kadibna u sheegaya inuu sheekada la jelo asigoo shaqo doon ah inuu uma doono isla markaas xariifka saaxiibkiisa oo caawihiisa ay wacaya asigoo iska dhigaya shaqo waraysi looga qaaday camal xariifkina waraysiga aad ayuu u adkeenayaa John Chu sheekada intay fashilmin ka bax meesha isu leeyahay isuu ku daminaya
isla markaas ay Suujin wuxuu diinaya in shaqo ay ku riyoto ay jirto inay jeceshahay inay ka shaqeyso waxayna u sheegaysaa inay jeclaaleed kambaniga Juke Group inay ka shaqeyso dhowr maalin kadib Suujin qorshe ay dejinaysaa si ay saaxiibkeed hore Mr. Gu gujigiis banaanka u soo dhigto ayay hotel qaaliya u kireynaysaa qol kadibna Suuliyan iyo Mr. Gu u kala diraysa ayagoo mid kale u malay inay qolka ijaaray ayay isku imaanayaan sheekadoodan halka ka wadanaya halka Suujin asxaabteeda ay soo wadanayso isla markiina qolka ay soo galayso halkaana ay ku fadeexaysanayso dhammaan waxay sameynayaan labadooda sawirran looga qaadayo Mr. Guna meesha ku fadeexoobayo sidoo Suujin sida ay u dhaceen Suuliyan dhacdada intii u adkayso ay weerar ku soo qaadaysa Suujin habeenkii Suujin markii guriga soo laabto Jonju ayaa wuxuu dareemayaa dhaawacyada wajiga ku yaalo wuxuuna halka ka ogaanayaa Mr. Gu inuu waxan dhab ka dambeeyay ugu dambeeyna Mr. Gu ayuu u tagayaa kadibna wuxuu soo bandhigayaa 30% kambanigiisa inuu iibsado Rooniga Mr. Gu ahaan isla markii uu aqbalaya arrinkaani maan la socda sariiqda loo dhigay wahay isla markaas ayaa sheekada waxa ka soo dhaxgalay gabadhan la yiraahdo Jianji gabadhan waa Jonju walaashiisa aabihiisa oo dhalay arrinkan inuu dhacay inay ka soo horjeesanaysaa isla markaas ayaa harkana fiidiyowga laga qaaday Mr. Gu inuu internetka aad ugu baahay xanta magaalada wareegtana u noqday maadaama qof xil sare kambaniga ka haya hadii sheekadan ay ku soo baxdo camal ay kambaniga dhibaato u keenayso Jianji ayaa markaa Mr. Gu waxay ka codsanaysaa inuu shaqada iska casilo si magaca kambaniga loo badbaadiyo laakiin wuxuu u sheegayaa asiga wax qalad inuu samaynin gabadha saaxiibtiisa ay Suujin lahayn oo keeni doona xafladda halkaasna uu ku caday doono inuu wax qalad sameeyo isla markaas ayaan arkaynaa Suujin abaheed oo la kulmay kadibna ka codsanaya inuu Mr. Gu xafladda u raacdo wuxuuna u sheegayaa Mr. Gu inuu handaday wada shaqaynta doqa ka dhaxaysa inuu jooji doono hadii uu arrinkaas dhicin laakiin Suujin way ka soo horjeesanaysaa ugu dambeyn doqa wuxuu leeyahay hadii ay diido hadaba meesha bundada ay iska tuurayaan waana iska dhimanaya aniga markaas ay ugu dambeyn ka ogolanaysaa inay soo raacdo inay soo raacaysa xafladda ay imaanayaan kooxda maamulka kambaniga dhammaan xafladda ay joogaan halka Jonju markuu arko gabadhan oo soo socoto oo iska qarinayo isla markaas ayaa Gu wuxuu ku leeyahay hadaba sheekada dhacday gabadhan ay idin cadeynayso markaas ay Suujin waxay bilaabaysaa inay ka sheekayso ninka sidii aadka uu taxadiro inuu jecel laakiin qofka ka sheekeynayso Mr. Gu maaha ee waa Jonju ugu dambeyn intay soo jeesatay ay wajiga ka saaraysaa runta ayadoo cadeynaysa ninkan inay wax xiriir ay ka dhaxayn stupidna uu yahay fiidiyowgana iyada ka duubtay si ay u fadeexaysato isla markaas ay dareed bay soo boodayso waxay u sheegaysaa inay stupid tahay inay doonayso kambaniga magaciisa iyo sumcadiisa inay baabi'iso sidoo kale kooxdii maamulka ayaa sidoo kale ku soo biiray arrinta ayuu ku dhahay waa in security loogu yeeraa gabadhan banaanka loo tuuraa Jonju markaa shakada uu adkaysan waayay isla markiina goobta ayuu imaanay asagoo markiiba ka hortooda ku shuminayo qof walba inaha ayuu tagayaa markaani kadibna wuxuu bilaabayaa Mr. Gu wajigiisa dhabta inuu soo bandhigo wuxuuna halkan ka cadeynaya Mr. Gu inuu gabdhaha hatii ku rakaatay jiray oo xafiiska ka shaqeeyo shaqadooda si hoosaysan xiriir u la sameeyay jir asagoo awoodiisa adeegsanayo sidoo kale lacag badan oo isdaba kambaniga u khayaan lacagna ka dhacay maadaama Mr. Gu sheekadiisa banaanka ay timid sirtiisa isla markii meesha ayuu ku dhacay asigoo soo xayo naxtinta uu ka nahay isbitaal ayaan loo cararaya isla habeenkaas Jonju Suujin wuxuu ku casuumayaa maqaaxi heer sare isla markiina wuxuu bilaabayaa dareenkiisa jecelka inuu dhaq u qarto jecelkiisana u sheegto Suujin markiiba way ka ogolaanaysaa waxayna sidoo kale u sheegaysaa qorshaheeda iyada gooniga ay wadato kaasoo ah shilka hooyadeed ay ku geeriyootay inay ka daba tagto maadaama shilkaas ay ku lug leeyihiin Juke Group markaas ay aroosir sameeysanayaan inay isguursanayaan kadibna studio ayaa sawir looga qaadayaa subaxdii xigta markay ka soo kacdo waxay arkaysaa iyadoo isaga quraac u diyaariyay warqadii ugu tagay meesha intay akhriinaysana nin engineer ayaa u imaanaya kadibna ku dhahay guriga wax isbedel ma lagu sameynayaa kadibna waxay weydiinaysaa wuxuu ka wada sidaasi markaas ay u sheegaya Jonju iyo si gurigan inay habeeyeen naqshadana guriga uu diyaariyay Jonju naqshadii inuu tusinaya isla markaas ay waxay soo xasuusanaysaa yaraanteeda wiilka yar ay badbaadin jirtay inuu isla Jonju yahay ayada ku garatay guriga qaabka u dhisan yahay maadaama yaraantooda buug uu ku arkay guri ay iida sawirtay markii uu weydiinay ay ku dhahday guriga aan ku riyoodo gurigan weeyaan maalintaasna uu jawaab maalmaha kamid ah uu riyoodon riyadooda gurigan camal u dhisi doono maalintaas Jonju iyo Suujin ay soo baxsadeen ay meesha ka soo carareen ninkii afduubaha uu soo ceyrsaday kadibna iyagoo wadada ku soo cararay ayaa Suujin hooyadeed arkaysay waxayna isku dayaysaa inay caawiso isla markaasna gaari ayaa la marsiinaya oo shida ay u geeriyoto hooyadeeda waxayna ka shaqaysantahay Juke Group qof ka tirsan oo ka dambeeyay waxaana dham maalintii xigta waxay isku daarinaysaa inay xogayo ka naqato kambaniga Jonju wuxuu tagay inuu caawiyo asagoo qorsheeda garab ku siiyay markaani isla markaasna waxay bilaabaysaa xoog badan in aruuriso si marka hore kambaniga ay u hormariso magacna u dhex sameystaan Jonjuna shaqada ay qabato markuu arko aad ay u qancaya kadibna kulan ayuu isugu yeerayaa asagoo doonaya markaan dhammaan in la kansalo kambaniyada kale ay la shaqeeyaan oo kuwaas oo khatar ku ah kambaniga magaciisa inuu lumo khasaaran u keeni karaan maadaama Suujin hore uu soo diyaarisay barnaamijkaani Suujin markaan waxaan arkaynaa in kambaniga shaqo ka bilowday shaqadeena si wacan u haysato ugu dambeyn ninkii Mr. Gu ah oo xilkiisa sare kambaniga ka hay hoos lagu soo dhiriciyay ayaa Suujin u sheegay cadow weyn ee kambaniga kala kulmi doonto inay tahay Jianji iskana ilaaliso laakiin Suujin hadalkiisa waxba u qaadanayso habeenkii xafiiska marka laga kala cayaaco ayaa Jianji imaanayso kadibna waxay jabsanaysaa kombiyuutarkii Suujin isticmaalaysay markaas ayay waxay ku arkaysaa xog ay aruurinaysay Suujin ilaa 10 sanadood inkastoo kambanigan inta joogto kaliya bill shaki ayaan ka qaadanaysaa dhacdadaani ayadoo qaadanaysa in dad kale soo dirsadeen si spy ugu dhaqato una jaajuusto kambanigooda dhanka kale waxaa arkaynaa Suujin oo galayso qolka Jonju isla markaas kombiyuutarkiisa ay soo qaadanaysaa iyadoo xoog qarsoon ka baaraysa halkaasi oo ku saabsan shilka hooyadeed ay ku geeriyootay markaas ay waxay arkaysaa Jonju aabihiis lacag uu soo diray una soo diray iyada aabaheed waqtiga shilka hooyadeed ka geeriyoonaysay tan oo ka yaabinaysa sababta lacagta loogu soo diray aabaheeda marka waxa dib u malcsanaa shilka qofka geystay ayaan arkaynaa qof kale ma ahan ee waa baay shilkan kadibna Suujin aabaheed ay lacag badan siinaysa si uu arrinta u duuduub
kadibna way isguursanayaan laakiin maalin maalmaha kamid ah asigoo cabsan ayuu sawirka Sujin hooyadeed u tagayaa kadibna wax walba sidii ay ayuu meeshaas ka qaranaya laakiin wuxuu la socon gabadhiisa yareed ee Sujin inay meesha taagneed kadib hadalkan dhammaan ay maqlaysay waana sababta ay dadeed iyo aabaheed way u nacab tahay markaan waxaan arkaynaa Jonju oo la hadlayo nin kamid ah maalgashadayaasha kambaniga wuxuuna u sheegay in productyada ay inta la koobiyeenayo taasoo sumcad xumo u keenaysa kambanigooda dhanka kale waxaan arkaynaa Sujin oo la fadhiida saaxiibteeda kadibna cabitaan ay isku daldalaysaa markaan way farad waxaysaa waxayna ka sheekeynaysaa Jianji inay ka shaqaysan tahay inay qorsheeda qasto ninkeedana ku darto saaxiibteedna waxay kula talinaysaa Jianji in la saaxiibto in la dagaaleen isla markaasna iyadoo aad u cabsan ay guriga keenaysaa Jonju ayaa guriga soo gelinayo maadaama ay ka dhaxsan tahay waxay u sheegaysaa Jianji inay jeclaynin hab dhaqankeeda Jonju wuxuu ka dareemayaa saaxiibtiisa ay ka walwalsan tahay gabadhaasi isla markaasna niyadda ay u dejinayaa asigoo ku dhahay xiriirkeena waxba kama dhimaysa gabadhaas iska daa maalintii xigtay kambaniga ee problem ka dhacayo product ay iga lahayn ayaan la xaday kambaniga kale soo saaray lacag aad u jaban suuqa ku iibiyay taasoo kambaniga dharbaaxsho dhaqaale ku naqatay isla markaas ay Jianji waxay u sheegaysaa kambaniga ka dambeeyay inuu yahay John Fu kambanigiisa Jonju ayaa ku talinaysaa go'aan fiican inuu gaaro oo ku saabsan arrintaani Jianji ayaa markaa u maanaysa Sujin iyadoo u dhiibaysa file una diraysa inay soo tirkoobto productive bakhaarka yeelay Sujin file markay fiiriso waxay ku arkaysaa dhammaan productyada inay tahay productyada aabaheed soo koobiyay kambanigiisana u xaday isla markaas ay Jonju la soo wacaya kadibna loo sheegaya kulan degdeg kambaniga la isku imaado maadaama productyada la koobiyay kadibna raqiis suuqa lagu gadoohayo waqti xadirkan shaqaalaha kambaniga dhammaan ay waxay dush ka saarayaan Sujin maadaama John Fu aabaheed uu yahay kambaniga alaabta koobiyay asiga uu leeyahay marka kulanka la isku imaado Jianji ayaa bilaabayso inay arrintan xaditaanka ku eedeyso bay iyadoo ku dhahayso ninkeeda ay caawinaysaa kambanigiisa inay rabto inay kor u qaado laakiin bay arkan way ka soo horjeesanaysaa wax cadin halka inay leedahay maadaama wax cadin aan lagu heynina wax dambi loo saari kara ma jiraan inkastoo Jianji marka ay ku daraysan marka waxay go'aansanaysaa inay daba dhigato Sujin isla markaasna baaritaan dheer ay sameynaysaa waxayna halkan ka ogaanaysaa kulanka ay baarka ku kulmayeen Sujin iyo Jonju inay iyadoo soo qorsayso Sujin CC cameradan ayna soo qaadanaysaa kadibna Jonju ay u keenaysaa ayadoo ku dhahayso isbarashada labadiina isbaranaysiin gabadhan iyada ka dambeysay qorshe hor u diyaarsan uu ahaa laakiin Jonju waxba kama gelin maadaama ay walba gabadhan uu doonaya asiga isla markaasna geedkii intuu qabto u jijibinaya flashkii wuxuuna go'aansanaya toos inuu u weydiiyo waxay damacsan tahay isla markaasna waxaan arkaynaa Sujin oo aabaheed la kulmayso aabaheedna kambanigiisa maadaama kambanigan koobiyay alaabtiisa daawada ayaa laga furay gabadhiisa inuu ku marsiinayo inay ka fududeyso arrinkani maadaama CEO-ga ninkeeda uu yahay laakiin waxay ku leedahay afaraas ay gelin aniga Jonju waxa uu guursadana hooyadeed dhimashadeeda inay ogaado sababta ka dambeysay ay ku leedahay isla markii guriga ku soo laabato Jonju iyadoo fadhiisanayaan kadibna wuxuu bilaabay arrinta inuu weydiiyo markaas ay ku leedahay dabaad idin kula tahay inaan ku khiyaanay waa inaan kala danaysanaa oo kala tagna farantiga ayayna soo bixinaysaa laakiin asiga arrinkan kama aqbalayo isla habeenkaas qolka ay soo galaysa kadibna waxay bilaabaysaa inay raadiso warqadihii gurka si ay ugu saxiixdo inay kala tagayaan laakiin isla markii qabatama asiga ayaa imaanaya wuuna ka dafayaa asagoo isla bartaas ku jeexjeexayo markaas ay wuxuu sheegaysaa aabaheed inay u qabato lawyer maxkamadna ay kula dagaali doonto halkaas uu ku dhahay hadaba ma ku guulaysan kartid maxkamadda arrinkani maxaa yeelay si walba loo fiirsho aniga ayaa gar ku leh laakiin iyadoo ku adkaysanaysaa way ka tagaysaa Jonju markaan digsi labada dhinac ka gubtay uu noqday si uu ma doonayo kambanigiisa inuu lacag lumiyo ama saaxiibtiisa magaceeda wax gaaraan markaas ayuu maalintii xigtay shirkii kambaniga wuxuu ka sheegayaa in dacwada dib loola laabto taasoo Jianji isla markii ka xanaajinayso waxayna u sheegaysaa shirkiisa dhammaan inay iyada isku soo wareeji doonto waxaan halkan ka ogaanaynaa bay inuu qabin jiray Jonju aabihiis gurkoodana oo ahaa guur ganacsi oo wax jacayl una ka dhaxaynin kadibna Sujin aabaheed ay isbarteen xiriir hoosan ay sameeyeen sidaa darteedna uu uray ku qaaday Suliyan iyadoo ka dhigayso Jonju aabihiis inuu urka u leedahay kadibna sheekadaas uu ku fahmay maadaama waqti xadirkaas uu haysan wax caruurana oo go'aansaday Jianji inuu korsado maalinta saxiixa feelasho gabadhan uu korsanayo ayaa bay oo telefoon ku hadlayso waxay gaari ku dhufanaysaa Sujin hooyadeedna sida ay ku gariyoonaysaa oo shilka maamadaas ay ku dhimatay sida ay ku dhacay kadibna John Fu asiga u aamusiiso ay lacag u siisay asigana u guursatay dhowr sano kadibna German Lee wuxuu ogaanayaa xaaskiisa koowaad inay wiil u dhashay kaasoo ah Jonjuna sida ay familka ku keenay waqti xadirkan waxaan arkaynaa Sujin oo lawyer wacayso si uu ugu doodo dacwada aabaheed lagu soo oogay laakiin aabaheed ayaa isla markaas u imaanaya kadibna uu mahadcelinaya asigoo ku dhahay waa ku mahadsantahay gabadhayda inaan ciddaas ka dhadhacsiiso inay dacwadii la laabtaan waxayna halkan ka dareemaysaa ninkeeda inuu khatar geliyo shaqadiisa si uu iyada u caawiyo isla markaas waxay la kulmaysaa Jonju ayada ku dhahaysa nacas baa tahay shaqada ayaa khatar gelinaysaa asigana wuxuu ugu jawaabayaa mar walba aniga garabkaada ayaan ahay wax dhibaatana kulama doonayo wuxuuna xasuusinayaa hooyadeed sababta u geeriyootay kaliya inay tahay iyadoo iga badbaadinayso dartiisna waxaas dhan ay ku dhaceen hadalladan uu ku dhahay ayaa dareenkeeda kicinayo kadibna iska oynaysa ugu dambeynna way heshiinayaan isla maalintaas Mr. Gu ayaa soo wacay kadibna wuxuu u sheegayaan iska gadaya shirkiisa maadaama qamaara u dhila deemo badan loogu leeyahay isla markaasna way soo baxaysaa waxayna u sheegaysaa ninkeeda Jonju ayadoo arrinkan ka shakaysan inay wax qaldan yihiin kadibna Jonju ayaa shirka gadanayo oo asiga ayaa iska dhigaya kambaniga ninka ugu sheerka badan dhanka kale bay qorshe gooni ay geeskeeda ka wadataa waxayna ku leedahay ninkan kambaniga khasaarada ku soo dhacday waxba kama gelin halka Jonju uu ku jawaabayo kuwa cusub ayaan ku bedelaynaa kuwii hore laakiin bay qorshaha hore u degtay oo alaabo badan oo fiiga ay meesha soo gelisay baqaarka isla markaasna waxay bilaabaysaa inay Jonju ku eedeyso inuu asiga ka dambeeyay waxayna sidoo kale bilaabaysaa inay ku handado inay wareysi ku bixi doonto arrinkaas isla markaasna Mr. Gu ayaa istaagay kadibna warqadihii uu saxiixay ayuu meesha soo dhigayaa asigoo ku dhahayo
Jonju wuxuu heshiis la galay John Fang asigoo kamaniga khiyaanay saxiixiisana waa kan ayuu ku leeyahay markaan loo malay Jonju inuu baxar ku jiro ayaa isla markii waxa goobta soo gaaray Suji sheekadan oo dhan waxa ka dambeysay Bai iidana waxaan isku soo diyaarisay ayadoo isdhaysay Jonju baxar galiye laakiin Suji ayaa sheekada dhan ka qaseys waxayna keenaysaa cadeymo inuu ninkan ka dambeyn ayadoo sheegaysa usbuucii hore inay xafiiska gashay kadibna ay ku aragtay kontraad been ah lana saaray saxiixi Jonju sida daraadid kontraad ay dadkan soo bandhigayaan inay wax jira ahayn ay feegta sida kuwii hore camal u kubiyeen tanna waxay cadeynaysaa Bai iyo Mr. Gu inay shaqadan dhan ka dambeeyeen qorshahan isla diyaariyeen maadaama sirtooda ay fashilantay labadooda shaqada ayaa laga ciirinayaa ugu dambeyn Jonju wuxuu qaranayaa walaashii Jianji qorshahay wadatay inay booska kala baxday inuu ogaa waqti xadirkana booska iyada uu banaynayo wuuna soo tagaya kamaniga kadibna uu Suji u imaanaya isla markaas ay Suji waxay weydiinaysaa sababta uu qariyay arrinkan laakiin wuxuu sheegayaa inuu kamaniga waxba la ahayn si saacan laga bilaabo waxa kaliya uu doonaya inay tahay saaxiibtiisa inay waqti fiican wada qaataan ugu dambeyn nolol barwaaqo iyo baraara ay halka ka sii bilaabayaan sheekaduna halka ay kusoo gabagabeysaa fadlan hada sheekada ka heshay muuqaalka like inoo saar hadaan ugu cusubtaan sheekooyin xiiso badan sida loo socoto subscribe noo saar gabdhalkana furo wixii ra'yi aan noo haysan halka nagu reeb bye bye my team my family